wadatashigan ay soo agaasintay hay'adda aysa isla markaana muddo 2 maalmood ah gaalkacyo uga soconayay xubno matalayay qaybaha kala duwan ee bulshada gaalkacyo ayaa maalintii labaad intiisa badan looga doodayay ka qaybgalka bulshada ay ku leeyihiin hanaanka maamulka dawladda hoose ee gaalkacyo iyadoona su'aalo lagu weydiinayay ka qaybgalayaasha kuwa intooda badan ku qotomay barnaamijka loogu magac daray wadajir ku wada shaqaynta ka qaybgalayaasha ayaa intii kulanka lagu jiray koox uga jawaabay su'aalihii la weydiiyay kuwa oo markii dambe soo joodintooda kadib su'aalo iska weydiiyay koox kasta su'aalihii ay ka soo diyaarisay jawaabihii la weydiiyay magacaygu waa Liibaan Cabdi Calluux waxaan ka socdaa group C su'aasha noo diray oo aan kaga qayb qaadanayno tababarkan la xiriira maamul sida waxay tahay xubnaha maamulka degmada ma yihiin kuwa ay dadweynaha heli karaan su'aasha waxay tahay maamulka degmada ma heli karaan bulshada jawaabta aan bixina waxay tahay ha maamulka degmada haddaan u baahano waxaan ka heli karnaa xarunta dawladda hoose oo ah xarun shaqeyso oo furan xilli kasta aan u baahanahay waxaan ka heli karnaa maamulka degmada labo marka u baahano waxay loogu yimaadaan ama aan ugu yeeranaa xarumaha xaafadaha ama laamaha xarumaha ay leeyihiin ayay noogu yimaadaan halkaas ayaana kula kulanaa waxa aan ka qabno iyo waxay maartay ay xaaladu tahay halkaas ayaa isku wareysanaa saddex waxaan kale oo ku heli karnaa si gaar ah waa u heli karnaa ayaga oo bulshada ku dhex jira oo si gaar haddaan u baahano waxaan ka dhex heli karnaa bulshada oo ma ahan dad maaragtay oo maaragtay wax u xiran yihiin oo ama loo soo gudbi karin waa dad bulshada ku dhex jira marka saddexdaas qodob ayaan ku soo qeexnay sifa aan ku heli karno maamulka degmada meesha waxaan ku jirnay magacaygu waxa la yiraahdaa Micidiin Cali Salaad meeshaan su'aalaha loo diray oo ahaa focus group discussion oo ku saabsanaa marxaladda ay ku sugan tahay degmada Gaalkacyo su'aalihii in la weydiiyay waxa kamid ahaa su'aasha ah maamulka degmadu qaaba macnaha ma qabta la tashiyo dadweyne su'aashina la weydiiyay waxa kamid ah loo diray maamulka degmadu ma qabta la tashiyo dadweyne oo loo yeesho dadka ka tirsan bulshada oo ku saabsan qorshaha horumarinta amniga iyo arrimaha kale ee bulshada su'aashaas waxaan ka dhignay ha baan jawaabteedii ka dhignay jawaabtii markaan niri waa haana reason baan samaynay oo waa sii faahfaahina si dhiibli ah waxaan niri waa qabtaa wayna dhacdaa macnaha asbuucyadii la soo dhaafay maamulka degmadu wuxuu la shiray waa dhankii amniga qodobka koowaad dhanka amniga ka dhignay wuxuu la shiray qaybaha kala duwan ee amniga sida taliyaha qaybta taliyaha degmada Gaalkacyo qaybta macnaha saldhigga magaalada Gaalkacyo iyo qaybaha kala duwan ee booliska iyo militariga inta waa la kulmay wayna shireen kulli Facebook-yada waa la soo dhigayay meel badan waa ka aragnay qaybtaasi waa jirtaa oo haabaan niri qodobka labaad oo kale wuxuu ahaa sidoo kale waxa kulamo joogtaa la yeeshaa qaybaha kala duwan ee bulshada arrimaha bulshada muhiim maahan qof walba oo degmadan ku nool inuu maayarka iyo degmada iyo macnaha maamulka degmada la kulmo muhiim maahan laakiin waxa muhiim ah bulshadu waxay leedahay dad representative ah ama wakiilo ah wakiiladaas waxa ku jira dhalinyarada kale wakiil bay leedahay ururka dhalinyarada jira hooyooyinka ururka haweenka jira odayaasha dhaqanka jira minority group wax la yiraahdo jira oo dadka maaragtay deegaanka looga tirada dariya laftigoodu dad macnaha oo advocacy oo ah oo macnaha u qareema baa jira waxa jira macnaha qaybahaas kala duwan qaybo walba bulshada kamid ah waxa jira qayb representative oo ah ama wakiil oo ah oo degmada la tacaamusha wixii soo siyaada ama horumarin ha ahaato ama mashaariic ha ahaato ama wax qaybsi ha ahaato ama maaragtay wacyi gelin kala ha ahaatee dad u qaybsan baa jira
marka dadkaas iyo degmada xiriir baa ka dhaxeeya ma ahan bulshadii oo dhan waxaan ka hadlaynaa waa bulshada qaybaheeda kala duwan oo dadka macnaha leaderska u ah bulshada qaybaheeda kala duwan iyo degmada xiriir toos ah ka dhaxeeya tusaale hadaa u soo qaato waxba iska sheegay macnaha dadka macna ma sameynayso laakiin waxa waray fedesis bal cadeymo hadda dhalinyarada ayaa inta dhaweedo kale hotelkan galow waxa lagu qabtay shir dhalinyarada iyo degmada iyo gobolkuba isku yimaadeen oo laga hadlayay arrimaha deegaanka iyo sidii macnaha loola macaamuli lahaa Facebook aan u ka arkan uma joogin laakiin Facebook dadka ka arka kamid aha waxa jira oo yaal dhaqan oo loo yeeray oo degmada iyo ay la shireen gobolku ay la shireen iyo qaybaha kala duwan ee bulshadu oo macnaha laga hadlayay arrimahan hadda doorashooyinka kale arrimaha amniga kale arrimaha mashaariicda kale arrimaha ma aragtay isku tashiga dadweynaha wacyigelin ah oo barnaamijyo wadooyin la furayo kale dad ba ka qayb galay laakiin macnaheedu ma aanu waa joogay kabaana qayb gali macnaha bulshada oo dhan ka qayb gashaa wax macquul ma ahan laakiin dadka wakiilka oo bulshada way joogeen macnaha xiriir joogtaana waa leeyahay qodobkaas waa qodobka saddexaad oo dhalinyaradii iyo haweenkii iyo minority groupkii IDBCyada hadda waa ogtiin ayada lafteeda kulan joogtaa iyo hawlo joogtaa baa iska jira IDBCyadu mar walba waa dadka fanaanaybalka oo iska nugulo in laga warqabo mar walba u baahan marka kuwaas kulankooda waa joogto bacal loo geenay cagada loo geenay anagu arkayna ma qaa wax u geenay laakiin in maamulka degmadu meelaha uu tagay IDBCyada Facebookyada iyo macnaha shirarkaasi halkaas waa ka arkay halkaas kala socon halka u daa qodobka saddexaad waxaan nidhi waxaana mar walba laga wada tashadaa arrimaha bulshada arrimaha amniga iyo horumarinta bulshada iyo arrimaha amniga labaduba waa tiir dhexaadka bulshadan mar walbana waa la joogteeyaa dad gaar ah oo ay khusayso hadda dadkan ka kusoo sheegayna ba arrintaas iyo degmada ba ka macaamila arrintaasna marka iyada laftigeedu intaasan ku soo salaaleynay wax qarsoona ma ahan ma jira bulshada oo dhan iyo macnaha degmada aaminaad xoog leh iyo wada shaqayn toos ah iyo maaragtay shaqo fiican ma ka dhacaysa waa ishu gooni ah taasana hadda ku dari maayo waa ishu gooni ah laakiin wada shaqayntii bulshada iyo degmadu ma jirta ha habaalena intaasan ku soo gabagabeynaya aniga wiish يا سؤال قوا وحيقان ما لا ورستاها ليرمس وحوغال وحيقان وحو يقانا وحكمة إلهي كبيري لكن وحوغال با لا ورستاها باليري أنا وحن كتر سنة دقمدي دولة هوسة بشي لباد وقت كوكا وحن كاها حمين قولة ديغان بانكاها degmadana waxaan ahay dadka ama ku dhashay ama joogay ee ma imaan safar kuma imaan degmadu dhaliisha ay leedahay waa la sheegayaa amaanta ay leedahana waa la sheegayaa in la xaqiro ma degmada Gaalkacyo intaan u soo joognay ma arkin anigu muxuu ahaa wax iswaraysi isku imaansho dadka oo leadershipka ah loo yeero ma ana arkin umana soo joogin aniga samsami sababtoo ay tahay ma jirto degmo albaabkeedu furan yahay xafiiskeedu furan yahay lagu shaqeeyo albaabkeeda iyo xafiiskeeduna loo siman yahay ay imaadaan dadka degmada Gaalkacyo ku nool aniga oo ka tirsan dawladda hoose ayaa waaya meel aan kula kulmo hotelka waa la wada joogaa dadka indabiyadu way joogaan mujtamacu way joogaan dhalinyarta haweenka iyo qolada degmada dhammaan waa laga wada heli karaa qofka aad u baahan tahay 5 star ama ambasiya tagaysa Gaalkacyo inta lagu kulmo waa laakiin raqiib iyo catiida garbaha iyaga saaran ma rabno inaan qof aan jaaifeynana ma rabno aan ataagno oo aan ku sameeyno ataag in oo baalka la yiraahdo ninkii wixii saddeed ayna ma ahayo naftiisa hafarna ma ahi saddeediis ay ka seexatay ma ahan in anaga banaanka ka nahay eeda aan sheegayno iyo wax dhigalaha aan ka hadlayno waan ku dhex jirnaa laakiin haddana waxa waaye wixii jira in la sheego assalaamu calaykum fadlan loo dhameeyo wada qoran
leeyahay adoon midna eedeynay midna ammaanayn horta warqadan fursad baa laga saara gruubka say kala ahaayeen loo kala fiixa أنا سوي كذي يا دي معقول تاي ما دام جروب كده وقفتي أنا كامسنا وأنا ورقة على هذا جروب الصخرة سيارة جروب ما فكر كسوق الحين وسوق بياسي أي واحد يتوصل لنا وقف بس أركتيس نيبتو مركب هذا مشترين كاميرا ده هذا نلاقي يعني جروب كأسنا وحنا جروب تريوانا جروب مركب مخشتنا ومضل وحلو جويو قف كذب هلا وقف عن جر هين وكله لحب عن هين هالكاس عكوس قرني قف كيوحي وقريب بيننا وقف حوايا قطر وايا وحار شيء ولا كسر فيا anyway waxa waaye anaga dawladda hoose waa iridda gaalka laga soo galo aniga boqolkiiba boqol iyo malaa'igu ma dhahayo laakiin duruufaha jira waqtiga jira xaaladda jirta magaalada ay madaxda u tahay markaan qiimeeyo waxaan aaminsanahay boqolkiiba 70 shaqooyinka lagu talagalay inay qabatay waxa kamida sida loola macaamilo IDP-ga sida wadajirka wadatashiga leh hoos loogu daadagayo ee afarta degmo isku xiran tahay gaalkacyo afarta xaafadood sida bulshada loo wacyi gelinayo sida gudoomiyaha hada u baahatid aad ugu yeeran kartaa xitaa iska daa hotel iyo xafiiskiisa oo furan ani time furan gurigaagu kuugu imaanayo marka waxaan qabaa dawladdan inta ay noo qabatana inaan uga mahad celino haday soo laabatana la shaqeyno ani xilbaan ahay oo ku jiray xilwaan hadaan hayna ma rabo inaan darbiyada ka caytamo laakiin halkan marka miiska fadhinay wax aan la isku yareysanayay iyo dhaliisha gudoomiyaha leeyahay miiskan saarayni doorkeenan qaadanayni waqtigeenan ku hadlayni marka aniga waxaan qabaa degmadu amaan dhalin wada laakiin boqolkiiba 70 wax qabataan amisanahay su'aal yar baan weydiinayaa Muxuudiin horta midrun buu ka sheegay Muxuudiin midna been buu ka sheegay ما يعسق عفكي سكوها أو كذي غير واين كانه محدين وحن كان لا يا دنك عندي بيسيدا أنا قدامي عندي بيس بانها عندي بيسدا وحاتري وتجا دولة دوسوات تقطع عقدة جيسة أو ما جيسة وانروح عقدة أو ما وجيسة لكن سكارة لسولي باو كارك عاوي عقدة هلا جاي مهمة WFP بيحرس معاك بين قداني أو معاوي مدة كلا وحاتري عندي بيسنا ويسكو حرينا ويسكو دولة هوسة فربي كانك تايا ويدا اللي ترتا من اللي ترتي أيضا اسكو درتا أنا قدامي وتاجن بعندي بيسكي قبل أنت الله يا دولة هوسة وشقيسة بالله مقعابة أيضا اسكو درتا أيضا أنا بعد سبعين وايتاس وحكلا أي قبتنا بتشرون ظلمي يا مكر بالدولة هوسة قبت مدة كلا عندي بيسنا مقالة كوياله يحمر كي الله قيف شافر يبر دولة هوسة بسكله ما ولا بعد كلام أنا عندي بيسو قدامي هالكا وأنا ما سنتين يا ذا ما سنتين ضد واحد كسب سنتهاي دولة هوسة ثلاثة بالشدة ما كان حيسها كما دحيسه مرة بعد IDP سيدا إيو بالشدة وأسمين ومثلنا أنا مرة لما كسر عشنا وحنا قدومية أوروكا وينك قبل كمدو وحنا قدوميها أفينك هوينك قبل كمدو نبضة labada dhinac Buntland iyo Galmudug waxyaabo kale oo ahayo badan waa jiraan waxaan ahay IDPs guddigiisa ah qaybta horumarinta iyo development-ga xildhibaanadeeda qadar waan soo dhaweynayaa qadar waxaan leeyahay cadaaladda u hiili xildhibaan hore waad ahayd xuquuqda aad leedahay maadan heli jirin haddana waad helaysaa weyn mayside codada iska saaran leeyahay saaxiibtay qadar waxaan nahay anaga wakiiladii ummadan waxaan xaq u leenahay inaan ka jawaabno waxa qaldan iyo waxa saxan been ma idin sheegayo aniga waxaan ahay gudoomiyaha ururka haweenka 3 sano ma aanan shaqeyn waxaan u shaqeyn waayay markaan arkay dhibaatada jirta iyo shaqo xumida oo hay'adii markay yimaadaan waa run qadar waxay tiri dawladdu waa albaabka laga soo galay tiri dawladda hoos waa albaabka laga soo galay tiri muxuu ahaayay dawladdu waa dhab waa loo imaanayaa hay'adaha horumarintu waa u imaanayaan waxay leeyihiin haye maxaa jira dadka ay qusayso hawlahan wadnaa waxaan wadnaa horumarintii haweenka waxaan wadnaa tababaradii haweenka waxaan wadnaa ka doodistii GBV-ga tacaddigii laga hadlaayaan wadnaa Allahu musta'an one meeting hal shiran ku jirnaa hal is dhageysto
saas darteed markay intaasi dhacdo koobi dhab adduunka meel walba koobiyaa ka jirta heblaaya kala shuba halkaanay soo fadhiisanaysaa waa madaxdii haweenka hebelow fulaan waa madaxdii dhallinyarada hebelow kale waa nin aan beeshaas matelin oo beelaha laga tirada badan yahay ka turjumaayo oo markaas rubciisa qaadkaayo wax la mida la siinaayo hay-aduhuna qayb bay ku leeyihiin dulmiga noocaasa iyo waxyaabaha ku qaldama waayo ayagoo yaqaana inay haween mas-uuliyiin jiraan dhalinyaro mas-uuliyiin jiraan beelaha laga tirada badan yahay ay u daadegi karaan ayay waxay samaystaan ku dhantaasay la koobaan ilaa waxa la leeyahay hore haddaad rabtiin inaa hawshaani waa okay warkayga raac aniga isoo raaciya xaggee loo wadaa lama garanayo haweenkii haweenku waa isdagaalsiin looma yeeri karo shaqadooda annagaa qaadayna haweenku isma dagaalsana gobol iyo degman ku shaqeynaa wakiilaan leena isma dagaalsana hay-adaha waxaan leeyahay shaqo walba qofka iskale ha abbaaraan ha joojiyaan dulmiga iyo ninkay u yimaadaan ku dhandhahaayo oo ay halkaa la fariisanayaan ummadda ha weydiiyaan dadka hala tashiga ha badiyaan hay-adahan leeyahay dowladda hoose waxay ahaydba hadda waa noo dhammaatay hadda iyo mid aanan u joogno midii horreysay soo maahan nalama tashan jirin 3 sano ma aanan shaqayn anigoo ilaalinaya isku dhaca beelaha iyo dadka ehelka markaan soo ooyo shaqadayda hebel qaato maanta uu caayay walaalkay ma fadhinaayo wala isdagaalaya wala isku dhacaya waxaan door biday wixii shaqadaasi mudneed ha dhaafto intii calaf u gala iyo heblaayadii la guruubaystana ha cunto sabab adiga aa leedahana yaan lagu dagaalin intaas go'aankaasaan qaata darteed baan 3 sano anoo shaqaynayn ku joogo xilkayga teetalkayga haya qofkii iyo mas'uul oo yaqaan anu waraabo horaan ahayo ummado badan aan la soo shaqaystay oo ilaa maxay ahayd Soomaaliya goboladeeda meel aan ka soo shaqayn ma jirto ama business aan ku soo maro business baan ahaa saas darteed qofkii yaqaan aniga magaalo madar waa inta joogtaan oo marxaad qofkaas aan la shaqeeyaa waxa aan u jeedo aan leeyahay shaqadaydu lisitana waxaan uga gaabsaday inaan dadkaygu isku dhicin maadaama ay eeladeed yihiin nimanka degmada haya walaalaha yihiin nimanka gobolka haya walaalaha yihiin dawladda galmudug kulli muslimiintu walaalaha yihiin tusaale guri 40 lagu dhuftaa waxa ii dhistay hay'adda Tiisday 2000 waxa ii dhistay iyo 15 gurigaas 18 fura lagu wareejiyay wuxuu ka koobnaa qaybo kala duwan 3 xafiis 2 hool oo shir ah garoon ciyaareed oo basketball ah oo gabdhaha aan ku ciyaarsiiyay Puntland iyo Galmudug koob lagu gudoonsiiyay 2016 gurigaas waxa iga dhacay dad u dhashay deegaanka qadar xildhibaanka waa helaysaa maxamed saa darteed gabdha igama dhicin dhalinyarana igama dhicin rag baa iga dhacay 7 nin baa i dishay aniga inta noolaa uu iguma dhicin maalinta ka hor korkeyga uu kuma dhicin walay garaacay gurigi markii banaanka la iga soo dhigayna gaari baa la soo kiciyay la tarool albaabkii lagu dhajiyay dharrag waa la alxamay anoo xanuunsanayo ooynaya ayaan isla markii automatically waan fiiriyay nimankii wajiyada waa ina quraac waa ina qansax waa ina garas waa ina fulaan kuwa ii imaanayana waa kadaaliko ama waa ilma adeer ama waa ilma abti meeshaas subaxdaas dhiig badan baa ku bixi lahaa dad badan baa ku baabi'i lahaa hadaan waa waray dhaho go'aan degdeg aan qaatay inaan dhibkii igaaray inkiro waxa isoo wacay taliyaha booliiska Galmudug Xabeeb generaalka oo markaas ahaa taliyaha maymuun waa lagu dilay 2 gaari aan ku soo diray waa jooga beelow nin inta nin dheer qabsada waxaan ku yiri taliya layma dilin laakiin gurigii waa la iga xoogay laakiin layma dilin gamadii waa iga dhacday gabsaarka waa iga dhacay taleefkii waa iga dhacay waa la garaacay korka dhan waa i bararay 7 bari baan in la fariisiyay ma fariisin waa si la iga garaacay la jukaynay maalintaas go'aankii aan qaatay guul buu ahaa waa lagu kala badbaaday laakiin gurigii in la dhacay waan sheegay shirkii aan tago iyo emailkii aan diray waxaan dhahay gurigii waa la iga dhacay gurigii hooyooyinka waa la dhacay markaan shirarka imaado wasiirka amniga u sheegay mid walba wuxuu jiray naga daa waxaas deenin in aan islaan nahay baa qaatay naga daa 4 sano kadib waxaan ku guuleystay dawladdan cusub inay gurigii soo celisay wasiirka amniga fiqi gacanteedu ku soo celiyay alxamdulillah uga mahad celinaya sidaas darteed dhibaatooyinkaas baan qabnaa oo ku shaqeynaa haddana dulqaadkeena iyo samarkeena iyo kala badbaadinta ummadeena ayaan maxay ahayd aan sameynaa laakiin xaq uu soo baxaya xaq madugubay wasoo daahira intaasi kadib ayaa waxaa xiritaanka kulamadan wada tashiga ee 2 maalmood ka soconaya gaalkacyo ka hadlay mas'uuliyiin ka socotay hay'adaha AISA iyo CRD
kuwa oo sharaxaad buuxda ka bixiyay ujeedka kulamadan wada tashiga. marka ugu horeysa horta aad baan idinkaga mahadnaqayaa imaanshaad halkan imaadeen oo aad ka soo qayb gasheen shirkan lagaga hadlayo wada tashiga bulshada. sidaad la socotaanba waxaa barnaamijka iska kaashaday 4 hay'adood oo kala ah ISA, CRD, FCA iyo European Union oo ah donorska deeq bixiyaasha. barnaamijkan waa barnaamij maxay ahato aan hay'ad kale aysan ka maarmin. hay'ad walba shaqo gooni ay wadaa, balse hadda kan maanta aynu ku jirno waa kii ISA waday. wuxuuna noo soo bilowday maalinta Khamiista ahayd. mar labaad iyo mar saddexaad aad baad ugu mahadsantihiin kasoo qaybgalkaad ka soo qayb gasheen, khaasatan madaxda halkan fadhido aad baad u mahadsantihiin iyo isku soo dabaridkaad isku soo dabarideen kasoo qaybgalayaasha. intaa ka sokow wax yar waxaan rabay inaan ka hadlo wada tashiga bulshada. barnaamijkan asal ahaan waxaa la yidhaahdaa wuxuu ku socdaa waxa la yidhahdo wadajir framework oo ay isku soo dabriday wasaaradda arrimaha gudaha. wuxuuna ku salaysan yahay ka qaybgelin siyaasadeed shakhsi walba ee bulshada la matalo, haween, dhalinyaro, dadka laga tirada badan yahay, dadka degmada ugu badan, shakhsi walba oo degmada ku nool in la matalo. haddii aan la matalin shakhsi ka mid ahi micnaheedu waxa weeye lama fulin waxyaabihii la isku afgartay ee ahaa wadajir framework. waad la socotaan guddiga qabanqaabada tusaale ahaan waxaa jirtay guddi hore loo soo doortay ee jiray. guud ahaan waxay ka koobnaayeen rag, wax dumara kuma jirin. danta waxaynu ugu qasabtay in aan mar labaad la soo cesho oo gabdho lagu soo daro. taasina hadafka guud ee laga lahaa wuxuu ahaa in shakhsi walba ee degmada ka mid ah in la matalo. haddaan u soo noqdo marka khaas ahaan ISA waxay noo xil saaran tahay qaybaha electionka ama doorashada. doorashadii weli ma aynan gaarin, weli awood qaybsiga ayaa lagu jiraa, balse waxaan ku guda jirnaa in aan ururino xogtaasoo loo adeegsan doono in nuxurka lagala soo baxo. waxaa noo soo socda talk show saaro soo dhow. waxaa noo soo socda talk show TV-ga la soo fariisan doono. waxaana ka soo qaybgeli doono ilaa 12 qof, ugu badnaan 15 qof, ugu yaraan 10 qof oo ka kooban haween iyo ragba iyo dhalinyaro yaa ka soo qaybgeli doono. waa dood wadaag. su'aalaha la isweydiin doono waxay ku salaysan yihiin waxa maanta ee aad soo bandhigteen. yaanu sii lafaguri doonaa insha Allah. TV-ga ayaan laga soo dayn doonaa. waxaan jecelnahay marka insha Allah in aynu idin soo wacno shakhsiyaad idinka mid ahi inaan soo wacno oo ay ka soo qayb galaan talk show-ga. waa taariikh 12 iyo 14 iyo 13 12 13 iyo 14. marka waan idin wici doonaa insha Allah idinkuna inaad isku sii diyaarisaan talk show-ga. insha Allah saaran way ka soo qayb gal doontaa iyada na dhexdhexaadin doonta. marka intaa ka badan ma dhihi doono insha Allah. hadalka nuxurkiisa hore ayaa looga hadlay. shirka waynu soo gabagabeynaynaa, laakiin waxaan jeclaan lahaa Sahro haddii aad
in balay noo soo xirto shirka insha allah kadib aduu alla idma kulay waqtigina sidaan arkayno macnaha howlaha soo yaraanayaan usbuuc kale aduu ilaahay nafta nagu sii muxaarabnaa inaad qayb weyn ka qaadato qaybabkaad soo socda aduu ilaahay idmo ugu dambeynna Sahra Ali Yuusuf oo ka tirsan wasaaradda gargaarka dawladda federaalka Soomaaliya ayaa dardaaran u jeedisay ka qaybgalayaashii dhammaan waxaan salaamay bulshada halkan fadhida qaybaheeda kala duwan title kasta iyo magac kasta ay ku fadhiyaan waxaan ku salaamay salaanta islaamka assalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatuh waxaa mahad ii ah inaan maanta aan idinla soo gunaanado barnaamijkii socday labada maalmood socday ee ahaa ujeedooyinka wada hadallada dhisinta golaha deegaanka waxaan u malaynayaa golaha deegaanka kelmadahaas waa idinku soo noqnoqdeen dadka laga rabo in ay golihii deegaanka ay dhisaan ama ay u istaagaan dhismihii golaha deegaankana waa inta halkan fadhida iyo inta naga maqan waxaa loo baahan yahay maanta waxay maraysaa dhismihii golaha deegaanka meel fiican ayuu marayaa saacadana waxaan ka soo baxay aniga barnaamijyo goosgoos ah oo sidii loo dardargelin lahaa isbuuca soo socda inay magaalada Gaalkacyo yeelato maayir iyo maayir ku-xigeen iyo golo deegaan oo loo dhan yahay idinkana waxaan u malaynayaa casharada aad qaadateen way idinku dhex jirtay waxaa la rabaa inaad dhexda u xirataan sidii golihii deegaanka loo dhisi lahaa golaha deegaanka dadku waxay u yaqaanaan shakhsi ama labay u yaqaanaan laakiin golaha deegaanka waxa ku dhex jira mashaariic badan oo intiinan dan idin wada ah maanta magaalada Gaalkacyo ma laha MCH delivery ah oo hooyooyinku ay leeyihiin dhallaanka maaragtay meel la geeyo hal isbitaal oo asagaba xaaladiisa sida uu ku socdo aan ognahay ayaa maaragtay ka furan iyo isbitaallo private ah wadooyinkii waa aragteen qaabka ay hadda ku socdaan inay ahayn qaab si sax ah inay ahayn haddii laakiin golo deegaan oo cadaalad ku dhisan la heli lahaa Gaalkacyo maanta waxay noqon lahayd deegaamada hore marayo marka waxaa la rabaa in dalkiina loo turo dadkiina loo turo lana iska daayo maaragtay qof jeclaysiga iyo anaa hebela iyo bari maaragtay qofkan waxbuu ii qabanayaa in la iska daayo oo masiirka dalka iyo dadka loo tanasulo oo mashaariicda laga faa'iideysto mashaariicdaas markay si siman ay u timaado oo hoggaan caadil ah oo loo wada midaysan yahay uu halka ka soo baxo qof walba fadhigiisa iyo mansabkiisa ayuu wuxuu ku helayaa wixii uu raadinayay laakiin haddii maaragtay aan loo istaagin Gaalkacyana sidaana waxay u noqonaysaa qol mugdi ah oo faynuustii laga gaabiyay idinkuna saana wajiyadiina u ekaanaysaan waxaa idinkula dardaarmayaa fursadda maanta aa haysataan hay-adihii oo dhan aa noo jooga dowladdii dhaxaa joogta dowladdii waxaa joogta galmudug aa joogta maanta fokisku sida hadda aniga isboodkan uu ii haayo ayaa caalamka dhan u fiirinaya Gaalkacyo waxa ka soo baxa aan noqono wax cadaalada oo aan noqono konsol loo dhan yahay aan noqono mashaariicda sidii looga faa'iideysan lahaa waxaa kaloo aan ku sii daraya yaa layla yaabin anigu mar walba waxaan ka hadlaa jandarkaan ka hadlaa 27 xubnood ee golaha deegaanka waxaan ka rabnaa 9 xubnood baan gabdhaha ka rabnaa qabiilkii aanan gabar wadinin wuu iska noqonayaa saas waxaan u leeyahay waa cadaalad haddii jandarka gabdhaha la siiyo qaybtooda golaha deegaanka la siiyo hadda waa naga fakanaysaan odayaasha baaq dheer iyo baaq gaabanba waxaan ugu dirnay dhalinyarada waxaan rabnaa inay nala shaqeeyaan haweenka laftigooda waxaan rabnaa inay taa u istaagaan xaqiijinta xubnaha konsolka gabdhaha ayaan u taaganaa ugu dambeyn waxa aan ku soo xirayaa aan ka faa'iideysano waxa maanta na dhex yaalla aan iska dayno nin jeclaysiga iyo hebelow aan iska dayno. Assalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatuh.